waayahay kulan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan idinla wadaago xogo hoose oo aan helayno kuna saabsan diyaaradaha markaasi ka dhoofaya garoonka magaalada Kismaayo iyo amaro culus oo la duldhigay yaase duldhigay amaradaasi maxayse tahay waxyaabaha lagu qasbay maayarka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waa markaasi guud ahaan Jubbaland xogtaasi ayaan rabaa in halku kugula wadaago haddii ay tahay markii ugu horreysay ee uu ku soo gaaro muuqaalka fadlan noo like gare share gare si meel dheer aan u gaarno like-tana saaxiibo fara badan ayay ina tusaysaa mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal magaalada Kismaayo amar guud ee ka soo baxay masana la siiyay maayarka magaaladaasi gaar ahaan qaybta diyaaradaha ee garoonka magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ayaana amar uu bixiyay kuna aadanaa iyadoon markaasi amarku uu ka imaaday madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Maxamed Islaam laguna amrayay waa maayarka inuu markaasi dhammaan diyaaradaha ee ka duula magaalada Kismaayo guud ahaan gobolka Gedo gaar ahaan iyadoon markaasi maamulka Jubbaland oo dhan si weyn loo kontroolayo diyaarad imaadayba waa inay ku timaadaa amar ama fasax laga haysto ama uu ka haysto maayarka garoonka diyaaradaha ee magaalada waa markaasi Kismaayo gobolka Gedo oo xiisadiisa isaguna aad u xamaasad kacsanaa muddooyinkii ugu dambeeyay una muuqatay in markaasi maamulka halkaasi ay si weyn ugu soo horjeedeen ayaa maanta amarkan ugu weyn ee la bixiyay ku socday kuna aadanaa gobolka Gedo oo ah meesha inta badan diyaaraduhu ay ka degaan xuduudna ay la tahay Ethiopia iyo Kenya iyadoona markaasi sidoo kale diyaaradaha ugu badan ee baxana ay ka baxaan magaalada Muqdisho ee caasimadda ee Soomaaliya dhammaan garoomada gobolka Gedo iyo guud ahaan gobolka waa markaasi ee maamulka Jubbaland ayaa amaro culus la duldhigay kama soo degi karto diyaarad aanan laga warhaynin ama aanan laga ogeyn garoonka magaalada Kismaayo diyaaradii ka timaada meel kale oo aanan ka warhaynin maayarka ee markaasi garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si amar markaasi la duldhigay inuu ka celiyo airportka misana haddii ay diido inay ka joogtana la qarxin kara iyada oo dhanba waa mucjisada ugu weyn ee maanta ka taagan Soomaaliya marka la joogo heer waxaa la marayaa dhammaan maamuladii dalka in ay markaasi midba midka kale furka uu ku tuuranayo taasi oo waqtigan la joogay ay u taagan tahay ama ayba u tahayba xiisatii ugu xumeed abid ee Soomaaliya ka dhici karto shirkadaha duulimaadyada ayaa sidoo kale amarada la siiyay waxaa ka mid ah iyada oo aanan markaasi shirkadii u hoggaansamaynin hoggaanka ee markaasi maamulka Jubbaland warkiisa aanan ka soo degi kareynin magaalada Kismaayo iyo waliba sidoo kale nawaaxigeeda masana guud ahaan gobolka Gedo oo waa markaasi maamulka Jubbaland oo idil taasi oo markaasi diyaaradaha ama duulimaadyada ee ka baxayay magaalada caasimadda kuna wajahnaa gobolka Gedo iyo waliba soo kale Kismaayo noocyada qaybahooda kala duwanba ay si weyn waqtigan la joogay baqdin mas'aabsi weyn ay uga kulmaydo taasi ayaana waqtigan la joogay u muuqata in xaalad kale ay sii kicin karto maadaama duulimaadyada ugu badan inta badan ay ka baxaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka haddaba ma dhaqangali doona amarkan culus ee maamulka Jubbaland ku soo rogay shirkadaha diyaaradaha ee ka baxa markaasi caasimadda iyo waliba soo kale magaalooyinka kale ee kala duwanba aragtida qaybta safaalada commentiga ayaad inagu wada kartay si share garee muuqaalka meel dheer nala gaarsiin mahadsanidin